safarada duulimaadyada diyaaradaha waxay bixiyaan isku xirka gaadiidka degdega ah ee adduunka oo dhan sidoo kale waxay dhaliyeen kobac dhaqaalo waxayna fududeeyeen ganacsiga caalamka iyo dalxiiska ku dhowaad 100,000 duulimaadyo ayaa kacaya oo soo dega maalin kasta adduunka oo dhan diyaaradaha waxay qaadaan in ka badan 10 milyan oo rakaab ah iyo ku dhowaad 28 bilyan oo alaabo ah maalin walba taasoo sidoo kale lagu cadeeyay in duulimaadyadu ka dhigan tahay 3.5 boqolkiiba wax soo saarka guud GDP-ga ahna 2.7 trilyan oo dollar adduunka oo dhan waxayna abuurtay 65 milyan oo shaqo caalami ah sidaa darteed halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 10 duulimaad diyaaradeed ugu dhaadheer aan joogsiga lahayn adduunka oo dhan ku soo dhawow muuqaalkeena maanta duulimaadka koowaad Singapore ilaa New York tani waa duulimaadka aan joogsiga lahayn ugu dheer caalamka oo dhan waxay isku jiraan fogaan dhan 9542 mayl 15336 kiiloomitir 18 saac iyo 50 daqiiqo aan joogsi lahayn ay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Singapore Airlines duulimaadka labaad Singapore ilaa Newark Libert New York waxay isku jiraan fogaan dhan 9539 mayl 15351 kiiloomitir 18 saac iyo 30 daqiiqo aan joogsi lahayn ayay diyaaradda hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Singapore Airlines duulimaadka saddexaad Auckland New Zealand ilaa Doha Qatar waxay isku jiraan fogaan dhan 9041 mayl 14550 kiiloomitir 17 saac iyo rubi aan joogsi lahayn ayay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Qatar Airlines duulimaadka afaraad Perth Australia ilaa London Heathrow waxay isku jiraan fogaan dhan 9024 mayl 14523 kiiloomitir 17 saac iyo rubi aan kala joogsi lahayn ayay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Qantas Boeing 787 duulimaadka shanaad Dallas USA ilaa Melbourne Australia waxay isku jiraan fogaan dhan 9004 mayl 14490 kiiloomitir 15 saac iyo 45 daqiiqo aan joogsi lahayn ayay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Qantas Boeing 787 duulimaadka lixaad Paris Charles de Gaulle Faransa ilaa Perth Australia waxay isku jiraan fogaan dhan 8878 mayl 14288 kiiloomitir 16 saac iyo 30 daqiiqo aan joogsi lahayn ayay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Qantas Boeing 787 duulimaadka toddobaad New York ilaa Auckland New Zealand waxay isku jiraan fogaan dhan 8842 mayl 14230 kiiloomitir 16 saac iyo rubi aan kala joogsi lahayn ayay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Air New Zealand Boeing 787 duulimaadka sideedaad Dubai United Arab Emirates ilaa Auckland New Zealand waxay isku jiraan fogaan dhan 8834 mayl 14217 kiiloomitir 16 saac aan joogsi lahayn ayay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Emirates Airbus A380 duulimaadka sagaalaad Shenzhen China ilaa Mexico City Mexico waxay isku jiraan fogaan dhan 8789 mayl 14144 kiiloomitir 16 saac aan kala joogsi lahayn ayay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda China Southern Airbus A350 duulimaadka ugu dambeeya duulimaadka tobanaad Singapore ilaa Los Angeles USA waxay isku jiraan fogaan dhan 8771 mayl 14116 kiiloomitir 15 saac iyo 10 daqiiqo aan joogsi lahayn ayay hawada ku sii jiraysaa diyaaradda Singapore Airlines Airbus A350 ugu dambeyn ugu yaraan haddii aad wax naga faa'iiday nagu soo bar YouTube-keena xigma soo subscribe dhaho muuqaalkan la wadaag asxaabtaada share hana ilaawin TikTok-na follow soo dhaado